waxa aan ku faani karo ee jaamacadda Hormuud ay isiisay waxa waaye inay nasiisay waxbarasho tayo sare leh. jaamacadda hal shay kaliya ku faani karo ima siidin waxay siisay shay fara badan oo aan ku faani karo mana soo koobi kari koow iyo labana hadii aan dhahaa waxa kamid ah inay nasiisay aqoon iyo waxbarasho tayadeeda sareyso oo maanta aan ku faani karo suuqa shaqada iyo goobaha waxbarasho aan tago biidhnillah. بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وعبد النجيب عبد الرحمن وحانا هاي قلن جبياشة جامعة هرمود Faculty of Computer Science and Information Technology Department of Information Technology IT Class of 2025. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مقعي ونجم قاسم شيخ أبو بكر كمد أرديد قلن جبياشة كقلن جبينيسة جامعة هرمود waxaana ka bixiyay Faculty of Economic and Management Science Department Business Administration Class 2025 Bachelor 12. Bismillah magacaygu waa Liibaan Maxamed Muuse waxaan ka mid ahay ardada jaamacadda Hormuud qaasatan kuliyadda beeraha waxaan ku faraxsanahay inaan ka mid ahay qalin jabiyaasha Class of 2025. sidee aad u dareemaysaa maanta adigoo ka qalin jabiyay jaamacadda waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo qalin jabiyaasha jaamacadda Facaweyn ee Hormuud anigoo halkaasi aan ka bartay khibrad waxbarasho tayo leh waxtar u leh mustaqbalkayga marka aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo qalin jabiyaasha jaamacadda ugu horeyn alxamdulillah ilaahay mahad iskale marka xigta dareenkayga ma ahan mid la qiyaasi karo ama lagu soo koobi karo hadal ama wax la mid ah waa dadaal in badan aan ku soo jiray aan maanta miraheeda dhaliyay alxamdulillah thumma alxamdulillah waxaan dareemayaa farxad iyo mudnaan gaar ah maadaama juhdi iyo dadaal dheer aan soo bixinay taas oo aan u taagannahay maanta miro dhalkeeda iyo in aan ku dabaaldegno maalinteenaan qalin jabinta ee xafladeena maxay qalin jabinta maanta ka dhigan tahay mustaqbalkaaga shaqo iyo nololeed waxay ka dhigan tahay qalin jabintayda maanta in mustaqbalka aan u diyaarsanahay shaqo suuqa ah iyo waxbarasho heerka labaad ee master degree qalin jabintayda maanta waxay ka dhigan tahay in aan wax badan kororsaday aqoon iyo xirfad tayo sare leh taas oo iga caawin karta inaan wax u qabto naftayda tan bulshada iyo tan qoyskayga intuba waxay iiga dhigan tahay tani waa barbilow aan ka bilaabayo heerkayga koowaad ee qalin jabinta jaamacadda una sii gudbi doono insha Allah heerar kale ka sii duwan sida masterka ilaa PhD-ga waxaan rajaynayaa insha Allah inaan waxbarashada kaliya aan ku ekaano oo wax badan u soo kordhin doono wadankayga oo kuna soo celin doono wixii la baray faa'iidadeeda insha Allah hal shay oo kaliya oo aad ku faani karto oo jaamacadda ku siisay muxuu yahay jaamacadda hal shay kaliya ku faani karo ima siidin waxay siisay shay fara badan oo aan ku faani karo mana soo koobi kari koow iyo labana hadii aan dhahaa waxa kamid ah inay nasiisay aqoon inay nasiisay cilmi inay nasiisay maxaa la hayay training fara badan jaamacadda dhexdeeda tababaro kala duwan inta jaamacadda aan ku guda jirnay xiisooyinka aan qaadan jirnay wixii nooga baahnaa in xiisadaas qaadano sida tababarada trainada kala duwan iyo waxyaabo kale oo badan waxa aan ku faani karo ee jaamacadda Hormuud ay isiisay waxa waaye inay nasiisay waxbarasho tayo sare leh iyo xirfad aan ku shaqaysan karno wax badan aan ku qabsan karno طبعا aniga Cabdi Najiib ahaan horta waxaan aad ugu faraxsanahay inaan jaamacadda ka helay waxbarasho horta tayo leh aan ka helay numberka labaad waxaan nasiib u yeeshay inaan ka mid noqdo sanadkayga ugu dambeeyo in aan ka galo kuliyaddeeda kaalinta koowaad sidoo kale aan helo hal sano oo waxbarasho oo aan lacag laga qaadin oo free aan ku dhigtay iyo waxbarasho tayadeeda sareyso oo maanta aan ku faani karo suuqa shaqada iyo goobaha waxbarasho aan tago biidhnillah fariin kooban oo aad u diraysid waalidiinta macallimiinta iyo jaamacadda waalidiinteeda waxaan leeyahay waa mahadsantihiin sida quruxda badan oo ii soo garab istaagteen oo igu soo tiiritay cabeesheen oo markasta ay ahaydeen garabkayga midig marna aadan ifaarujinin waa mahadsantihiin waalidiinteyda walaaladeyda dhammaan
intii oo garabkayga soo ahayd waxbarashadeydii dugsiga hoose dhexe sare iskuulka ilaa dugsigayga quraanka ilaa jaamacadda 4 sano aan soo dhiganay kuni ko jeer awaalkiina Allah ka dhiga jannatul firdaws ala waan xasuusnaan doona garabkiina waa ahaan doona insha Allah macallimiinteeda aad u mahadsantihiin sida quruxda badan ay maxaa inoo soo garab joogteen 4 sano kala duwanaa semestradii kala duwaneed macallimiintii kala duwanaa aan soo aragnay waxbarashadoodana siiyay cilmigooda nagu soo kordhiyay fikradahooda nagu soo kordhiyay wixii anaga maqnaa oo ayaga ay haysteen siiyeen gabadhani aad arkaysaa maanta waa gabadh idinka soo saarteen waan gabadha ku faan doontaan insha Allah mustaqbalka dhow waan mahadsantiinayaan jaamacadeen sidoo kale maamul macallimiin dhamaan jaamacadda waa mahadsantihiin tababarka quruxda badnaa waxbarashadii 4 sano sida quruxda badneed mar walba noo garab joogteen waa ku mahadsantihiin horta waxaan fariin u dirayaa waalidiinteyda hooyadeeda Allah u naxariistay riyadeeda ahayd inaad jaamic noqdo Allah u naxariisto sidoo kale aabahayga iyo walaalahayga soo garab istaagay oo ay kaalin mug weyn ka geysteen in riyadii lahayd hooyaday ay ayaga ii rumeeyaan oo ah inaan jaamic noqdo marka waxaan leeyahay waa mahadsantihiin dadaalkiina ayaa halkan isoo gaarsiiyey idinkoo garabkayga ahayn halkan ma soo gaari lahayn sidoo kale waxaan aad ugu mahadcelinayaa macallimiinteyda waxbarashada laga soo bilaabo macallinkayga dugsiga quraanka macallimiinteyda iskuulka iyo macallimiinteyda jaamacadda waxaan halkan fariin uga dirayaa waalidiinteyda mahadcelin gaar ah maadaama ay nagu soo dadaaleen wax badan juhdi ay nagu bixiyeen sidoo kale in badan ducadooda ay nala jirtay sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa macallimiinteena sharafta badan kuwaas oo nagu soo dadaalay juhdi iyo dadaal dheer nagu bixiyay mugdigana iftiin noogu bedelay sidoo kale waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa jaamacadda Hormuud taas oo fursad inoo siisay inaan ka mid noqono bahdeeda sidoo kale shakhsiyan aniga waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa jaamacadda inay igu dhiirigelisay sanadkayga ugu dambeeyay ee jaamacadda inay siiso fursad waxbarasho 1 sano oo lacag la'aan ah taas oo sababtay inaan ka mid noqday ardaydii kaalinta koowaad u gashay kulliyadda sanadkaas oo dhan wayna ku mahadsan yihiin maxaad kula talin lahayd ardayda dugsiga sare ee doonaya inay jaamacadda galaan khaasatan ahaan jaamacadda Hormuud waxaan halkan talo ugu soo jeedinayaa ardayda ka soo qalin jebinaysa iskuulada dugsiga sare in ay ku soo biiraan jaamacad ay siin karto waxbarasho tayo leh tacan jaamacadda Hormuud waxay ka mid tahay jaamacadaha ugu fiican dalka ayadoo halkaas laga helayo waxbarasho fiican oo hands on practical ah oo kulliyad walba qofku doorto practicadeeda wadato oo ardayda la siinayo kaliya theory aan ahayn practicadeeda la socoto marka waxaan leeyahay in ay ku soo biiraan jaamacadda Hormuud si ay u rumeeyaan himilooyinka ay nolosha ka leeyihiin iyo guulaha ay markaas rabaan inay ka gaaraan nolosha ardayda oo doonaysa jaamacadda Hormuud inay ku soo biiraan waxaan leeyahay soo dhawaada waxa dooranaysiin jaamacad oo idin hayso waxbarasho tayo sare leh tababar wax walba uga baahnaydeen hadduu noqdo doorashadiina jaamacadda Hormuud aad ka soo doorateen jaamacadaha kale waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada waxa doorateen jaamacadda ugu wanaagsaneed uguna fiicneed welcome aan idin leeyahay waxaan kula talinayaa ardayda dugsiga sare ka baxaysa jecelna waxbarasho tayo leh in ay doortaan jaamacad tayo sare leh xirfad leh iyo sidoo kale ayna ka heli karaan wax walba baahiyahooda dabooli kara khaasatan waxaan leeyahay ardayda waxaan kula talinayaa in ay ku soo biiraan jaamacadda Hormuud si ay u helaan aqoon tayo sare leh xirfad iyo wax walba ku caawin kara inay helaan mustaqbal ifaaya waxaan leeyahay ku soo dhawaada Hormuud family